وحقاق آية الله علي خامنئي kuna waqtaanka ayatullah cali khameneiga cusub ilaa haatan wax wara oo kusoo biiray oo ii muuqda habeeraatee ma jirto laakiin il gaar ayay burid Somali TV ku hayn doontaa haddii ilaha yiraahdo si aynu ogaano xaaladdu meesha ay marayso waqooyiga Israa'iil iyo weliba Golan Heights Syria waxaa laga maqlayaa ayaa leeyahay sawaxanka markaas Syria ayaa laga maqlayaa iyo galbeedka Elad City oo dekada ugu weyn ay ku taala ee Israa'iil waxaa daawadayaasha sharaftii karaamada leh intaas ayaanu jecelnahay xilligan haatan inaanu kusoo gabagabayno barnaamijkeena fiidnimo intaan kaloo kale dib ugu kulmi doono waxaan idiin rajeynaynaa ramadaan wanaagsan dardaaran yar oo muhiim ah dalkeennii waxaa haysata abaar aad iyo aad halis u ah dadkeenniina gaajo ayay u baaba'ayaan cid walboy meeshaad joogtaan wax aruuriya isxilqaama qoys iyo laba inaynu badbaadina aanu isku darno haddaad 10 qoys badbaadin kartid well and good haddaad hal qoys caawa dabka u shidi kartidna well and good inaan xil iska saarno xataa intiina isku xaafadda ka timid ee degan tusaale galbeedka London oo kale isku xaafadda is aruursada waryaa taqaanaa oo gaajo haysa waxa loo tuuro markii qof walba xoogaa yara laga soo qaado dadkiina culays kuma noqonayso dadkii soo warramaya Iran in ay weerartay 39 daqiiqo ka hor ayay Al Jazeera warkan ay soo gudbisay safaaradda in markaas mar kale ay weerartay sidoo kalena waxa ay markaa warkan ka soo tabinaysaa ama ka soo xiganaysaa wakaaladda wararka ee Reuters haddaba waxaynu arkaynaa dowladda dalka Iran inay bartilmaameedsanayso markaas safaaradaha haddii ahaan lahayd Sacuudiga oo ay horey duqaysay xalayto haddii ay ahaan lahayd Imaaraadka haddii ay ahaan lahayd Kuwait waxaynu arkaynaa inay goobahaas Iran ay bartilmaameedsanayso iyo weliba saldhigyada militariga ee Maraykanka bariga dhexe uu ku leeyahay oo la sheegay khasaaraha ugu weyn ka Bahrain ee fleetka ciidamada militariga Maraykanku ay leeyihiin weerarkii ugu badnaa inay ku qaadeen baraha bulshadana waxaa qabsaday saacadihii lasoo dhaafay muuqaal markaa dad Bahrainiyiin oo markaa ay gantaalada Iran ay u dabaaldegayeen oo ay soo dhaweynayeen sida muuqaalka lagu sheegay markaas barta Twitterka haatan aad u haysta haddaba wixii ku soo kordha qaybaha dambe ee barnaamijyadeena ayaan idinkugu soo gudbin doonaa laakiin waxaa muuqata safaaraduhu haatan Iran inay bartilmaameedsanayso su'aal aan ku weydiiyo khubarada militarigu caawa ay isweydiinayso Iran maadaama aysan haysanin satellite waxaan ka haga oo meesha gantaaladooda ay u socdaan ay markaa ay ku bartilmaameedsanayaan ay beegsadaan yaa Iran waxaan ka caawinaya waxaa xusid mudan dagaalkii 12 cisho Iran waxyaalihii ay bedeshay inay daawadayaal ay ka mid ahayd inay GPS-kii Maraykanka ay ka guudhay kan Shiinahana ay guudhay meelaha bannaan adigu buuxi maxay kula tahay waa ku soo dhaweynaya afayeenka militariga afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda dalka Iran ayaa waxa uu sheegay hubkoodii casriga ahaa ee markaas u dambeeyey in uu shelfska saaran yahay dukaanka meesha cuntada kaydka la dhigo halka ayuu loo saaran yahay ayuu yiri oo saaxada dagaalka weliba laguma arkin waa soo asagoo hadalka u dhigaya garo 47 mirir ka hor xilliga barnaamijka Burid Somali TV ay duubayso ayay warkaas Al Jazeera ay baahisay wuxuu kaloo intaa ku daray waxa uu sheegay in ay dowladda Iran ay diyaar u tahay dagaal dheer oo ay la galaan Israa'iil iyo Maraykanka isla mar ahaantaasna hubkoodii halista ahayd weli aysan isticmaalinin paragraafka hoose haddaan u degano sidoo kale waxa uu sheegay Iran inay awood u leedahay in ay iska caabiso weerarada uga imaanaya Maraykanka iyo Israa'iil isla mar ahaantaasna ay wado weeraro iyagu ay isku difaacayaan oo marna waa adkaysi marna waa difaac ay naftooda iyo dadkooda iyo dalkooda ay ku difaacayaan diyaarna waxaanu nahay ayuu yiri dagaal dheer oo la isku riiqdo oo xisaabta cadowgeenu oo isku dhufsaday ka dheer hadday Maraykanka iyo Israa'iil ugu talagaleen inay bil wadaan 2 bilood wadaan 6 bilood wadaan 2 week wadaan maalin iyo bar ay wadaan anagu intaa in ka badan ayaynu heegan ugu jirnaa ayuu yiri meesha u hooseysa haddii aad eegtidna waxa uu leeyahay uguma aanan talagelinin ayuu yiri hubkeena halista qabta horeba inaan saaxada dagaalka keeno
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda dalka Iiraan. Warar kale oo soo baxaya oo hoose ayaa dhanka kale khiyaarta sharafta leh waxa ay sheegayaan in markaas ay jirtay qorshe la degay oo ahaa sabtida in Iiraan la weeraro, axadda madaxdooda kurka laga jaro, maalinta isniinta ayadee shalayta ahaydna dabaaldegyo iyo dabadbaxyaal ay ka dhacaan magaala madaxda Tahraan ee xarunta dalka Iiraan iyo dalka intiisa kale, dabadeedna loo diga rogto sidii dowlad kale loo dhisi lahaa. Intaas waxba kama hagaagin ayaa la leeyahay. Ilaa iyo haatan waxa la hubo waxa weeye dagaalkiina inuu bilowday, odayga iyo xayn kalena la dilay Iiraan. laakiin Iiraan waxaan kaloo qaybta dambe barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa caawa xilligan xataa barnaamijkan aan duubayna arrin ka socota oo muhiimadeeda leh aan idiin soo gudbin doono. Su-aashu waxay tahay wa'ayo aayatullaahi cali khameyniga cusub ee lagu dhawaaqaya hadda waqtigan xaadirka loo fadhiyo in lagu dhawaaqo 88 xubnood oo arrintaa u xil saaran ayaa haatan shir u socda right now this moment in time. yuu noqon doonaa waa idinla wadaagi doonaa iyo shirku meesha uu ka dhacayo iyo Iiraan inay waagii u baryo sida la sheegayo. waayahay dhanka kale daawadayaal, dowladda dalka Iiraan ayaa waxa ay sheegtay markaas xayntii 16aad ee Operation True Promise markaas in ay qaadeen oo haatan xayn gantaalla ah oo tiradooda aan la sheeginin ay kusii wajahan yihiin Israa'iil. 3 daqiiqo ka hor ayay warkaas mar kale Aljazeera ay tabinaysaa oo gantaalada Iiraan waagii hore sidii ay ahaan jireen oo kale ma ahan ayaa leeyahay, haatan waa kolonyo weeye. markiiba intaas oo gantaal ayay dhinaca Israa'iil u afuufayaan. Israa'iil ayaa sheeganaysa 96% wax ka badan inay dhulka soo dhigeen, qaarkoodna hawadoodaba aysan soo gelinin, meesha kuwa kalena ay duseen oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur baaxsan ay geysteen. mar kale waxaa la leeyahay sidee ayay ugu suurta gashay Iiraan difaaca Israa'iil ee cirka markaas ay Israa'iil ku dhaarato, ay ku seexato, ku soo toosto, sidee gantaaladan ogaga duseen. waa arrin u taalla khubarada militariga ay aad iyo aad u faallaynayso. waayahay operationkaas ayaa haatan Israa'iil kusii socda, waxaana mar walba oo ay gantaaladan hawada Israa'iil ay u soo dhowaadaan la maqlayaa sawaxanka oo dadkii wadna qabad ku noqday oo noloshoodii markaas hakad gelinaya. hoos haddaad fiiriso 13 daqiiqo ka hor wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Turkiga Hakim Fidan ayaa waxa uu sheegay in la isku dayo in dowladda dalka Iiraan hoggaankeeda la bedelo inay tahay halis weyn iyo dhibaato markaas xasilooni darro iyo amni darro horseedi karta bariga dhexe ayuu yiri. waa Hakim Fidan wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan. khiyaarta sharaftii kalamadana waxaad daawanaysaa Brit Somali TV markasta meel kastoo dunida ka joogtaan. aan idinku niraahno mar kale Ramadaan mubaarak, soo dhawaada. xubinta kale barnaamijkeena daawadayaal aynu doonayn inaan u guda galnana waa qodobkan weeyaan. 19 daqiiqo ka hor sidaad halkan ka arkaysaanba dowladda dalka Iiraan jariirada Herald ee Israa'iil ka soo baxda ee dhinaca midigta ee fog u janjeedha ayaa waxa ay tabisay maqaalkan ay leedahay maqaalkan ay leedahay markaas haatan khubaro ka tirsan dowladda Iiraan oo markaas lasoo xulay ayaa waxay u fadhidaa ciddii aayatullaahi cali khameyni booskiisa geli lahayd inay ku dhawaaqdo. waxay ka kooban yihiin 88 xubnood. isla mar ahaantaasna kulankaas ayay haatan xilligan aanu idinla hadlayna ay u fadhiyaan. laga yaaba barnaamijkan in yaroo daqsi loo xiiro kadib inuu adiga kusoo gaaro, laakiin ayay u fadhiyaan sidii aayatullaahi cali khameyni ee dhintay khameynigii bedeli lahaa uu markaa usoo baxo. ruuxullaahi khameyni waynu ogeyn dhimashadiisii. aayatullaahi cali khameyni waa booskii galay, cali khameyni waa la dilay, khameyni kale ayaa la magacaabi doonaa. warkaasna waxay kasoo xigteen markaas wakaalada wararka Iiraan ee afka Farisiga ku hadasha ayay kasoo xigteen. xubnahan ayaa la sheegay in ay markaas online lagu qabanayo kulankan oo aysan isku meel jooginin xaaladda jirta awgeed. sidaas awgeed qofba meel ayuu kasoo gelayaa. 88kan waxaa laga rajaynayaa inay ku dhawaaqaan. Brit Somali TV barnaamijkan inta hadda aynu duubayno isha ayaanu marinaynaa wararkii ugu dambeeyey. haddii lagu dhawaaqo san adigu u noqotid qofka ugu horeeya markaa ogaada cali khameyniga cusub
yuu noqon doonaa xaruntii assemblygan ama ay guddigan uu ku shiri jiray qoom ku taalay waxa weeye weerar ayaa lagu qaaday weerarkaas inkastoo cidna aysan ku dhimanin sidaas awgeed halkaa laguma shiri karo dadkiina waa laga daabuleyey iswar cusub weye aan jecelnahay inaan la wadaagno saaxiibadeena waa hagaag madaxweynaha dowladda dalka faransiiska intaan u gudbin daawadayaal waxaa noo soo socda cornel douglas macgregor ayaa noo soo socda oo sheegay markaas iiraan inay haysato 450,000 oo gantaallo ah maraykankuna uu haysta 4,000 oo keliya afkiisa ayaad goordhow ka dhegeysan doontaa madaxweynaha dowladda dalka faransiiska emmanuel macron ayaa asaguna qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka iyo islamar ahaantaasna the associated press ay tabinayaan ayaa waxa uu sheegay israa'iil in iiraan lagu qaado dagaal dhulka ah oo ciidamada halkaa la geliyo inay tahay strategic era inay tahay a dangerous escalation khalad go-aana inay tahay oo saameyntiisa iska leh halis weynna ay horseedi karto emmanuel macron ayaa sidaas yiri maanta oo talaada ahayd xilli uu ka hadlayay markaa dagaalka haatan bariga dhexe ka socda serious consequences ayaa lagala kulmaya ayuu leeyahay iyo inuu dagaalkan gobolka oo dhan uu markaa uu ku fido oo halis weyn uu keeno xasilooni darre iyo amni darre ah wuxuu ahaa emmanuel macron daawadayaal soo dhawaada mar kale inta aanan u gudagelinin madaxweynaha dalka aan idhaahdee cornel douglas macgregor inta aanan u gudagelinin waxaan jecelahay warkan inaan dib ugu yara noqdo dowladda dalka qatar ay markaas soo saartay 38 daqiiqo ka hor in markaas la weeraray iiraan ay weerar ku qaaday markaas ballistic missiles weliba oo ay sheegeen gantaaladu nooca ay yihiin xarunta ciidamada cirka ee maraykanka saldhigga militariga ciidamada cirka ee maraykanka ee dalka qatar ku yaala waxyar ii dulqaato warkaas ayaan u malaynaya inuu war ka soo kordhay sida halkan igaga muuqato waa yahay right waa hagaag dowladda dalka qatar ayaa 2 shaqsi xirtay oo markaas ilaalada kacaanka iiraan lug inay ku leeyihiin loo malaynayo ayaa halkan ku qoran khiyaari waxaan jeclahay haatan inaan aadno halkaas iyo cornel douglas macgregor si aynu markaa u ogaano waxa uu yiri iyo hadalkiisu waxa uu markaa daaran yahay cornelka ayaa warbaahinta la hadlayay isla mar ahaantaasna ka faallooday xaaladdu meeshay marayso waraysigiisa aad ayuu dheeryahay 200 iyo aan idhaahde 2 milyan iyo dhowr boqol oo kun ayaa daawatay 17 saacadood ayuuna ku jiraa markaas gebi ahaanba internetka waa ku daaraya aan wada dhegeysano daqiiqadii bar ayuu soconayaa dabadeedna waxa uu yiri ayaynu isla eegaynaa haddii alla yidhaahdo waa kan cornel douglas macgregor oo ka hadlaya arrinta Iranians did not behave during the Iraq war any differently than we would have behaved if there were a similar war in Mexico. In other words, you do what you can to deter the force that's on the ground in the neighboring country from entering yours. You know, the other thing is that we have, I think, 4,000 missiles left in our inventory, something in that regard. Maybe those are different kinds, cruise and ballistic, I don't know. Iran has about 450,000. So that's quite a gap. You know, the other thing is you can kill a leader, but you can't bomb a civilization into submission. And we've never understood what we were dealing with in Iran. Everybody talks about Iran as some sort of radical Islamic state. hagaag daawadayaal waa maqlaysaan waxa uu leeyahay 4,000 gantaalo ayaanu wada haysanaa ayuu yiri infantrygeena qiyaas ahaantii Iran waxay haystaa 450,000 oo gantaal ayay haysataa and that is quite a gap farqi aad iyo aad u weyn ayaa noo dhexeeya maxay macnaheedu tahay macnaheedu waxay tahay Iran inay dagaalami karto afayeenkii wasaaradda gaashaandhigga hadalkiisii waad arkayseen ee quotation ku jiray oo yiri hubkeenii casriga ahaa lamaba aragna weli lama maqlin khabiir kale oo Maraykan oo ka faallooday arrintan lafdigeeda ayaa waxa uu sheegay
iiraan inay diyaaradaha iskooda isku wada droniska la yiraahdo iyo gantaalo raqiisa oo $2,000 midkiiba uu yahay ay ku dagaal tegayaan. infact waxaa saas yiri Larry Johnson oo horey u ahaan jiray xubin sare oo ka tirsan CIA-da haatana waa nin howlgab ah. waxa uu yiri waxay isticmaalayaan hubkooda raqiiska ayay isticmaalayaan. Maraykanka iyo Israa'iilna hub qaaliya oo malaayiin ah ayay uga jawaabayaan. mararka qaarkood halkii gantaalba 2 gantaal ayay Maraykanka iyo Israa'iil uga jawaabayaan ayuu yiri. dabadeedna waxaa dhacaysa in gantaaladaas ay isku difaacayaan ay dhammaadaan. haddii ay dhammaadaanna xaaladdu ay ku adkaanayso. khabiirkana waxa uu yiri maraakiibta waaweyn ee dagaalka haddii Hormuus ay soo gasho oo lugta la soo gasho waa meel ciriiri ah oo aysan awoodin inay markiiba kala weecdaan. halis ayay galayaan. bal wuxuu ku leeyahayba waxa weeye waa sitting duck weye. waxa sidaas yiri nin magaciisu uu aad u adag yahay marnaba aanan xasuusanin oo dowladda Greek ayuu wuxuu ahaan jiray wasiirkii maaliyadda xadad Google galis waa arkaysaa Yunis magac kaloo adag baa u raaca oo aan hadda haynin iga raalli ahaada. back to Colonel Douglas McGregor. macnaha hadalku waxa weeye 450,000 oo gantaalo haddii ay haystaan weliba dowladdii ay jirto inay dagaalamayaan ayaa muuqata. wuxuu yiri xisaabta kale khaladkaanu isku dhufsanay ee aanan fahminin waxay tahay hogaamiye waa dili kartaa. cali khamiini dhagtaa dhiigga loo daray iyo koox kaloo saraakiila. dagaalkii hore saraakiil iyo khubradii sayniska baa dhagta dhiigga loo daray iyadaan ma dhicinin. kana khabiir waa dili kartaa ayuu yiri laakiin hogaamiye waa dili kartaa laakiin civilization ma dili kartid. civilization waa maxay? Iran beysha weye boqortooyo jirtay muddo dheer caalamka in badan oo kamida ka talinaysay weye. waxayna caan ku yihiin aqoon iyo markaas horumar dowladda dadka Iiraaniyiinta ah meel kastay joogaan. wayna tooganaa shiica iyo sunni iyo waxa halkan lagama hadlayo. sheekadu intaas waa ka weyntaa inkastoo dadka qaarkood saacaddu ay u joogto kana shiica iyo kana sunni iyo mid baa dhagax ku tukaday iyo mid baa sii jeestay iyo mid baa surwaalka gaabsaday. arrintu halkaa ma joogto meel ka fog ayay joogtaa. marka civilization weye ayuu ku leeyahay ummad qarniye jirtay weye. taariikhda Iiraan ee hadda jirto waxaa dib loo celiyaa ilaa 3,000 oo sano. intaa ka badan ayayna Iiraan jirtay kana xoog badnayd. Maraykanku shalay ayuu u dabaaldegayay 200 oo sano iyo xoogaa. shalay ayuu dhashay marka Iiraan loo fiirsho waa baby weeyaan ama waa nuuna weeye waxa tiraahdaa. marka wuxuu ku leeyahay arrintaas xisaab khalada ayaynu isku dhufsanay. macnaheedu ma ahan Iiraan hoggaankeeda kacaanka ee 47 sano dadka haystay inay wanaagsan yihiin. ma ahan ujeedadu oo 47 sano dowlad jirtay oo cid bedesha aysan lahayn waa kadeed weeyaan. waxaa loo baahan yahay isbedel dowladdu inay dhiig cusub lagu shubo haba nidaam cusub yimaada dhalinyarada fursad la siiyo ummaddu ay horey u socoto. iyadoo cunaqabatayn ay saarnayd intaas ayay haddana Iiraan halkaas soo gaartay maanta. Ayatollah Ali Khamenei muxuu ka yiri Colonel Douglas McGregor? waa kan hadalkiisii dhegeyso. waxaa noo soo socda haddii wax war ay kusoo kordheen ayatollahiga cusub ee caawa in lagu dhawaaqo la rajaynayo. waaba haddii lagu dhawaaqay waa kan. Nothing could be further from the truth. Iran is ultimately Persia, and that civilization is much older. And Persian civilization, Persian thinking, Persian philosophy, Persian art and history, all of those things have been asserting their dominance over the last 25 to 30 years. And the people of Iran have largely walked away from this more ideologically rigid form of Islam. It's not, they didn't hate Khomeini and they didn't dance in the streets when he was killed. On the contrary, people saw him as a very, I think, humble and decent human being. He's halkan arrin kale ayuu soo bandhigay. arrintan muhiimad weyn ayay leedahay maxaa yeelay waxaynu aragnay ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo leh reer Iiraan oo kaca oo dowladdiina rida. waxa uu yiri Ayatollah Ali Khamenei ana only quoting him markii uu dhintay dadku dariiqada intay isku soo baxeen qoobka ciyaar bartamaha kuma aysan qabsanin magaalooyinka waaweyn iyo faras magaalaha oo looma dabaaldegin balse on the contrary bilcagsigeeda waxay u arkeen ayuu yiri nin diisan ah ixtiraam sharaf
iyo karaamo mudan ayay u arkeen ayuu yiri arrintaasu waxay bilcagsi ku tahay wax fara badan oo aan maqlaynay oo saxaafadda markaas dhinaca midigta u janjeedha ay buufinaysay gadaysay ay isku dayeysay inay tiraahdo ayatollah cali khamenei dadku waa necbaayeen haatan waxa ii muuqda news hadda soo dhacay inta hadalkan aan ku guda jirnay oo la leeyahay aaskiisii ayaa lagu dhawaaqay waxaana la rajeynayaa ugu yaraan 100,000 inay isku soo baxdo gudaha iiraan keliya dilkiisii kumanaan ayaa isku soo baxay isfahan anaga idiin soo tabinay laakiin 100,000 inay isku soo baxaan aaskiisa magaaladii uu ku dhasheen lagu aasi doono oo ah magaalo markaas barakaysan iiraaniyiintu siday u arkaan ayaa lagu duugi doonaa ayaa leeyahay infact warkaas waanu dabageli doonaa iyo kan ku dhawaaqitaanka aayatullaahiga cusub marba haddii aaskiisii lagu dhawaaqay dan aayatullaahiga cusub lagu dhawaaqo ayaa la sugayaa taasina waxay ku tusaysaa iiraan madaxdii laga dilaba waa la bedelaa dowladdiina waa sii socotaa hawada oo keliya oo laga duqeeyana waxaa la leeyahay dowlad horey loogu bedelayna ma jirto haatana lagu bedeli karo dowladda maraykankana waxaa la sheegay haba yaraatee bariga dhexe dagaaladii ay ka qaaday kasoo bilow kii ciraaq koowaad ee 1990kii ciraaq 2 iyo wadamadii kale ay weerartay hadday ahaan lahayd Libya hadday ahaan lahayd Syria hadday ahaan lahayd wadamada kale example kale waxa ah Afghanistan oo iyadoo dabcan bariga dhexe aan ka tirsanayn rikoorka dowladda maraykanku waxaa leeyahay waa mid aan mar raba qurux badnayn haddana dalsi kama bartaan waxaan jeclahay inaan dabagalo warkaas haatan soo dhacay bal aan idinku dhameeyo Colonel Douglas McGregor hadalkiisa sacrificed his life. He stayed where he knew he would be killed. Killing him has made him a martyr that even people that don't like Islam can honor. So I think waxa uu yiri markii la kala yaa dagaalku markuu bilowday goobtiisii kama uusan tegin buu yiri meeshii lagu dili lahaa ayuu joogay hore waxaan idinku soo sheegnay in la yiri wuu qorsheeyayba in la dilayo oo markaas uu doonayo inuu shahiid noqdo oo magac iyo mansab uu ka tago dilkiisiina wuxuu yiri wuxuu u noqday shahiid waa soo asagoo hadalka u dhigaya oo maanta iiraan si kale ayay ninkaas u aragtaa sidii hore si kasii duwan baa u muuqatay inuu aragto waayahay Colonel Douglas McGregor ayaanu ka baxaynaa khiyaarta sharaftii karaamada leh waxaynu aadaynaa isha maraynaynaa hal mar wax waro arrintaa kusoo kordhay ku dhawaaqa akhtaanka ayatullaahiga cusub iyo maalinta aaska labadaba idinkana waa idin soo dhaweynaya haddaanan Brit Somali TV hore ugu taxnayn fadlan aan kugu iga ogolaada inaan ku dhiirageliyo inaad rukumataan san idinkana waxba idiin seeganin anaguna tiradiina iyo tayadiina aan ugu faano waa hagaag wax yar ii dulqaado Bahrain ayaa ku guuleysatay in ay 74 gantaal ay ka hortagto oo Iiraan markaas ay la beegsatay ayaa la yiri maalintii Sabtida ahayd Bahrain waxaynu ognahay weeraro lixaad inay ku socdaan waa hagaag Ayatollah Cali Khamenei ku dhawaaqitaanka Ayatollah Cali Khameneiga cusub ilaa haatan wax wara oo kusoo biiray oo ii muuqda habeeraatee ma jirto laakiin il gaar ayay Brit Somali TV ku hayn doontaa haddii la yiraahdo si aynu ogaano xaaladdu meesha ay marayso waqooyiga Israa'iil iyo weliba Golan Heights Syria waxaa laga maqlayaa ayaa leeyahay sawaxanka markaas Syria ayaa laga maqlayaa iyo galbeedka Elad City oo dekada ugu weyn ay ku taala ee Israa'iil waa hagaag daawadayaasha sharaftii karaamada leh intaas ayaanu jecelnahay xilligan haatan inaanu kusoo gabagabayno barnaamijkeena fiidnimo intaan kaloo kale dib ugu kulmi doono waxaan idiin rajeynaynaa ramadaan wanaagsan dardaaran yar oo muhiim ah dalkeennii waxaa haysata abaar aad iyo aad halis u ah dadkeenniina gaajo ayay u baaba'ayaan cid walbo ay meeshaad joogtaan wax aruuriya isxilqaama qoys iyo laba inaynu badbaadina aanu isku darno haddaad 10 qoys badbaadin kartid well and good haddaad hal qoys caawa dabka u shidi kartidna well and good inaan xil iska saarno xataa intiina isku xaafadda ka timid ee degan tusaale galbeedka London oo kale isku xaafadda is aroorsada waryaa taqaanaa oo gaajo haysa waxa loo tuuro markii qof walba xoogaa yar laga soo qaado dadkiina culays kuma noqonayso dadkii gudaha joogayna wax fara badan ayay u suurtagelaya inay dab shitaan
ramadaanta ay waxay ku afuraan ay helaan iyo helayaan. Waxaan arkaya hooyo iyo caruur meel cidla ah fadhiya oo baad iyo biyo aan haysanin, siigaduna indhaha ay ka ritay, dabna aan shidanin, midna laabta ku haysa, midna dhabarka u saaran yahay, kuwo kaloo yaryarna ay yaalaan. Ceelna uma qodna, cidna uma maqna, ma rabna inaan idhaahno, oo rabbi ayay leeyihiin. gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed waynu leenahay. nasiib darro ma aqaano, wax nambaro ku qornana ma arkinin. fadlan xil aan iska saarno oo meel kastoo aanu joogno aanu ka qayb qaadano dadkeenii iyo dalkeenii say u badbaadi lahaayeen oo maantadaas aynu ola gaari lahayn wax ay quutaan.